ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa howlgal maalintii sabtidii sameeyey waxay ku burburiyeen fariisimo ay maleeshiyaadka al-shabaab ku lahayd deegaanada galka Saalim iyo Maracade ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalka waxaa fuliyey ururka afraad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. fariisimaha ay ciidanku cagta mariyeen waxay kooxda al-shabaab u adeegsan jirtay inay lacaga baada kaga qaado dadka deegaanka. ciidanka danab ayaa kordhiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo kooxaha kale ee halista ku ah amniga iyo nabadda. toddobaadkii hore ayay ahayd markii ururka afraad ee guutada 16aad ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay shidgooyooyin ka qaadeen wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo.